waxay ku oranayaan wadaad aan la ogeyn wuxuu ku sugan yahay waa la og yahay qof aan la ogeyn wuxuu ku sugan yahay ee janna yal naar ma jiraba su'aasha isweydiinta la taas iyagu waxay leeyihiin in culimatul qaadiriya sheekh dhintay oo qabriga ku jira oo awood u lahayn inuu hadlo oo aan duca laga aqbalay oo aan waxba tiri karin oo tiisi cuslaysay oo aakhiradiisii maanta la deeduruufaysan oo cadaab iyo janno wuxuu ku jiraan la garanayn ay leeyihiin wax natar oo wax nasiib barayaan biilay culimada kale marka halkaas eeda ka jeediyaan waa halkaas hadaba taariikh dhan iyo kitaab dhan iyo xadiis dhan ayay beeninayaan marka sababtoo ah oo dadka ka indhasaabayaan war dadku marka caalamkan joogan rasuulka waxa la soo mariyay salaatu wasalaamu alayhi janaasa la soo mariyay asxaabtiisa isagoo la fadhiya kadibna waxay asxaabtii oranayaan alla nin fiican buu ahaa ahlu jannu ahaa alla dadka ilaahay u wacan buu ahaa ilaahay ku wacan buu ahaa markaasuu rasuulku oranaya way u waajibtay haddana janaasa kala maalin kale la soo marinaya alla mid xun buu ahaa salaadu ka tegi jiray dadka ilaahay ku wacan mu ahayn dadka sharaftooda wax ka sheegu ahaa mid ilaahay aan ku wacnayn buu ahaa markaasuu nabiga ahlu naar buu ahaa markaasuu nabiga oranaya way u waajibtay hadda waa nabiga lagu oranaya oo nabiga ilaahay mid kasta dadku waxay ku sheegeen baa tiri way u waajibtay maxay tahay macnaha wuxuu rasuulku oranaya adum shuhadaa'ullahi fil ardi dadow inuu dadkii ilaahay ee marxaatiga adduunkan ilaahay uga ahaabatiyin qofkii dadkani wanaag ku xusaan intuu adduunyadan joogo iyo karaamo iyo ciis iyo inuu haljanno yahay waa ahlu jannihi cidii kale ay ku xusaan inuu ahlu naar yahay oo uusan ilaahay iyo diintiisa ku wacnayna sidaas uu ahlu naar ku yahayba dadka ka marxaati kacaya waxay ku oranayaan wadaad aan la ogeyn wuxuu ku sugan yahay waa la og yahay qof aan la ogeyn wuxuu ku sugan yahay ahlu janno yal naar ma jiraba su'aasha isweydiinta la taas bal iska badaaya tasarruf ma jira tasarruf al-arwah wax la yiraahdaa jira oo macal mashaayikhda ay wadaadadani daliishadaan ay qabaan oo sunnuhu sheegay xadiisu sheegeen aayaduhu sheegeen in isagoo qofkii dhintay qabriga ku jira uu tasarrufi karo way iska inda tirayaan way og yihiin maxaa taa kugu daliila oo dadku xataa caana yaqaanaan nabi muuse oo nabi maxamed intee u dhaxeeyay 5 salaadood marba malaha ummadaadu ma qaadi kartee ku noqo ilaahay waxa tiraahdaa ummadaydu inta ma qaadayso ilaahay oo ka kala dhin konta ki salaado ma haysa qasada soo nabi muuse ma dhiman oo waqti hore ma ahayn oo waaya kama soo wareegin muddo aan inaba caadi laakiin nabi buu hayo ilaahay waa manaam ku geeyay isaga laftiisa samada saacada hadaba manaam kaliya ma aha waxay tafaasiirtu tilmaamayaan in anbiyada jirkooda iyo allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam iyo cid kasto cid aysan jirkooda cunin baaba jirtay ma ogtahay ciidu ma ku leeyihiin qof dhintay oo ka sii daayay oo waxba ahayn hadaba sidaa ay moodeen maaha umurtu sidaana dadka ugu dhigayaan maaha nabi muuse wuxuu rasuulku leeyahay waxaan sii maray nabi muuse qabrigiisa ku tukanaya xadiista kitaabka ugu badan ee mar walba ka helaysaan tilmaamaha ama arrimaha ma aragtaa waxa la yiraahdaa aadka u bayaamiyay sheekh weyne tafsiirka iska leh waxa la yiraahdaa al-hawi al-fatawi waxa iska leh imaam suyuudi tafsiir ma akhrisanaa inagu jalaaleyn la yiraahdo jalaaleyn soo taqaan tafsiirka sheekh iska lahaa ayaa masaa'ishaas oo dhan ka jawaabay in arwaaxdu ay tasarruf leedahay nabi ha ahaado ama wali ha ahaado markuu dhinto inuu awood leeyahay uu adduunkan kaga warhayn karo bal iska badaayo wax uu tari karayo bal iska badaayo cid la hadash gaaladii maxay bartaa ka soo aragnay inay gaaladii ay maqlaysay nabigu yiri way maqlayaan Soomaa hadaba qofka dhintay wax maqlaya horta gaaladii ba xataa maqlaysay iska daa islaamkii hayo tasarruf ma leeyahay hayo hadii arwaaxdiisu ahayd arwaax ilaahay ku fiican ahlu janna wala si garanaya qofka inagu ma kala naqaana qofka ilaahay ku wacay qofka kale maad maqalkaas ilaahay kaar kuma leh ilaahay kaar kuma leh kaas oo maqal de marka lagu leeyahay kaas ilaahay kaar kuma leh maxaa ka soo horjeeda mid ilaahay kaar ku leh oo ummadda uga marxaat kacday inuu ilaahay kaar ku leeyahay ki ilaahay kaarka ku lahaa markuu wafaado iyo markuu dhinto iyo markuu nool yahay dadka la awood ma hade imika Sheekh Abdul Qaadir al-Jilaani oo dhan cidii diiday cidii ogolba waxa isku waafaqday inuu ahaa wali ilaahay xagga ilaahay ku wacan oo cilmigiisii iyo amalkiisiiba laga helay soo sidaas oo kale tasarrufaad buu lahaa intuu adduunyadan joogay arwaaxdu marka cilmiga ugu badan ee ka maqan ma taqaana wadaadadan yar waa cilmul arwaax wax la yiraahdo tasarrufka arwaaxdani ay leedahay qofku markuu dhinto jirkii baa bartaan gelinayaay arwaax wax la yiraahdo shaqaysa caalamul arwaax tasarruful arwaax ma yaqaanaaba intooda taqaanaana waa isdhaafin iyo isjiidisiin oo arwaaxdiiba waxay ka dhigayaan wax ilaahay la awoodo Allah hadii imika sheekha ruuxdiisii bartaa joogta waxaad ka eegtaa kitaabka isla ibn dunya uu leeyahay xaafidkan imika wuxuu yiri nin baa aabihii u iman jiray maalin kasta jimca ah wuxuu ku oran jiray aabo
quraan buu akhri jiray waa maalin walba jimco ah xadiis nabiga oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam leeyahay ninka waalidkii soo booqdo qabrigooda maalinta jimcaha hadduusan baari xataa marka hore qornayn oo jimco walba ikhlaaska 12 ikhlaas u akhriya baari ba xagga ilaahay laga qoraa xadiiskaas uu raaciyay mawti oo qabriga aabaha inaad jimco kasta tagto ikhlaas ku akhriid baa shardiyaba qabriga aabihii buu tagi jiray ikhlaaska ku akhriyi jiray maalmaha ka mid ah oon jimcihii ahayn buu si keliisa u yimid qabriga aabihii ku jiray buu dad qof lagu aasiyo soo raaca janaasadii kadibna si degdeg uga noqday qabriga aabihii soo sii maran aabihii uu manaam ku arkay kitaabka ibnu abi dunya sheekha kitaabkan iska leeyahay waxa la yiraahdaa al manaamaat baa la yiraahdaa wuxuu leeyahay aabihii buu habeenkii manaam ku arkay markaasuu yiri aabo maxaad maanta markaad janaasada soo raacday aad degdeg igu soo dhaaftay aabo markaan ku imaado miyaad arki jirtay haayo waan ku heshin jiray intaad xataa idul fadhido quraanka igu akhriyayso intaad iga sii libdhaysana waan ku sii eegan jiray waa maxay markaa tasarruful arwaax baan u bilownayn mana aha caabudid iyo ilaah ka dhigashee waxa weeyaan waxaan weyna ilaahay siiyay adduunka markuu joogay iyo markuu aakhira tagayba labadaba way shaqaynaysaa bal ku darso awoodda ilaahay bay ku shaqaynaysaa ilaahay hadduu damcana way soconaysaa haddii kalena ma soconayso bal iska badaaye awoodda ilaahay ma wax meel ku kooban ama xadidan ama dhimasho iyo nolol ku kooban ba maya cabaas bin cabdimudalib waxay bartaa daliishadaan qofku markuu dhinto xadiis odhanaya camalkiisu wuu go'aya dee camalkiisu ha go'e qofkan camalkiisu go'aya maxaa anfacaya baa lagu yidhi camal saalix ah iyo welad u soo duceeye uu ka tegey weladka u soo duceynaya uu ka tegey ducadiisu ma gaadhaysa ma anfacaysa ha soo ma gaadhayso rasuulku wuxuu axaadiis badan ku tilmaamay inay aqribadan iyo dadkii inoo dhowaa in camalkeena loo soo bandhigo haddii waalid ka arko in inankiisiyo wacnaaday oo camal wanaagsan ka shaqaysanaya wuu u soo duceynaya haddii kalena wuxuu odhanaya ilaahay waa soo dilin intuu camalkaa xun ka baxayo rasuulkana maalin kasta oo jimco ah saliga badiya sooma odhan warkiinaa la ii keenaaye micnihii arwaaxdu haddaysan bartan ku noolayn oo aysan shaqaynayn oo aysan saacadday doonto ka soo bixi karin arwaaxdan aynu waxna maqlayn tasarrufna lahayn miya alaabtaasi ansixi lahayd marka mushkiladdu waxay ka dhacday waxaa lagu dibaaqayaa qof dhintay kabihiisaa dhaama masale tidhahda masaladaas waxba kama jiraan wax sharciyo waafaqsantahay ma jiro qofku hadduu dhinto intuu adduunyadan joogay siduu ahaa unbuu ahaanay hadduu qof wacan ahaana oo ilaahay xaggiisa ku wacanna bartaasna wuu ku wacnaanaya horta hal midh aan kugu daro wadaadada dambe qabriga waxay ka dhigaan mataqaanaa wax qabriga ninkiisi loo kala teg maqalshid qabriga ninkiisi loo kala teg bay ka dhigaanoo waxay yidhahdaan qabrigu wax inaba nafciya ma leh rasuulkuna muxuu tilmaamayaa qabrigu waxa weeyaan awalu manzilin min manaazil alaakhira waa guri horta meeshani ay iyagu ka dhigayaan kudaafada waa gurihii awalu manzil min manaazil alaakhira waa gurihii aakhira ka mid ah sooma haddaba gurihii aakhira ka mid ah hadduu qofkii joogo waa qof gurigiisii jooge camalkiisii buuna la joogaaye camalkiisii hadduu wacnaa miyuunu bartaa awood ku siinayn camalkiisii wacnaa oo ilaahay ku kaalmaynayn maya sabab kuma kaalmaynayo hadduu ahaa mid faajir oon camal wanaagsan lahayna dee bartaa wuu ku noqonayaa uun mid ku cadaaban iyo mid ku jannaysan sooma aha rasuulku ma odhan haddaba kii ku jannaysnaa waa kan maalintuu dhintay ilaa iminka la xusayo ee taariikhdu xusayso ee dadku xusayaan ee magaranaysa warkiisii aan laga hadhayn ma qof aduguba aad og tahay adduunyadii inuu ilaahay kaar ku lahayn miyaa qabrigiisa inta la tago lagu allabaryaa oo ilaahay wax lagu weydiistaa oo loo faataxay rasuulkana xataa xadiiskaa way beeniyaan waa xadiis caana bukhaari iyo muslimba ku yaala inuu rasuulku habeen walba kowda habeennimo kici jiray oo xabaalihii baqiic aadi jiray haddii aysan xabaalaha baqiic in habeen walba kowda nebigu u guurayo aysan sugnaanin oo uusan ku soo allabaryin oo uusan ku soo wardiyin oo aysan waxbana tarayn waxna aysan kordhinayn iyagana aysan waxba u tarayn wardigani oo in la taga aysan hayn muxuu rasuulku habeen walba ugu guureynayay rasuulkaa tegayey sayid cumar baa tegayey nebiga qabrigiisii tegaya micnihi waa alaab sugan